markaan telefoonka garaacay ayaan u raaciyey, xabiibtii maxaa kugu dhacay? maxaad sidaan iigu samaysay? soo ma ogid noloshaada inay aniga qaali ii tahay? maxaa kugu dhacay? maxaad wax iigu sheegi weysay oo aadan ii soo wicin aniga? intaa oo dhan markaan dhahayay waa la aamusnaa. markaas kadib waxaa laygu yidhi, waxaan filayaa waa Cabdiraxmaan. habyar, waxaan ahay saaxiibtaa habyarteed. waan ka xumahay dhibka soo gaaray saaxiibtaa. waxaan ku celiyey, maxaa ku dhacay? maxaa ku dhacay ii sheeg. isdeji Cabdiraxmaan, waxaan rabaa inaan kuu sheego arrinta dhacday. maanan jeclayn inaan kuu sheego sababtoo ah waxay dhahday saaxiibtaa ha laga qariyo Cabdiraxmaan oo yaana loo sheegin. laakiin waxaa muhiim ah inaan kuu sheego maadaama aad ka welwelaysay weliba si aada. markaad isoo wacdayna aad igula hadashay si kalgacayl leh. saaxiibtaa shil ayay gashay, weliba shil daran. bajaaj ayaa la hoos gashay gaari weyn, weliba madaxa jug ayaa ka soo gaartay. feeraha qaar baa jaban, sidoo kalena lugteeda in yar bay iska haystaa oo dhakhaatiirta qaar waxay leeyihiin waa goosmo oo waa in la wada jaraa dhammaan lugta. haddana waxay taalaa isbitaalka. waan wareeray, wadnahana aad buu ii xanuunay. intaas kadib ayaan yaro fadhiistay si aanan dhulka ugu dhicin. markaan fadhiisteen indhahayga waxaa ka soo daatay ilin aad u fara badan. waxaana dareemayay xanuunka ay dareemaysa gacalisadeyda. si dhab ayaan u jeclaa, dhibkeedana wuxuu ahaa mid aniga si aad ii dhibayo. waxaan isku dayay inaan gaaro isbitaalka si aan u ogaado xaaladda gacalisadeyda. waxaan u soo degdegay dhanka gaarigayga, laakiin nasiib darro way ii saamixi weysay inaan kaxeeyo gaariga, waayo waxaan ahaa nin aad u dawaqsan. wadna garaacaygana saa'id buu ahaa, sidoo kalena aad baan u wareerayay. waana xamili waa inaan kaxeeyo gaariga. xaaladda ayaana ku kaxin waayey gaariga. waxaan wacay saaxiibkay si uu ii garab siiyo aniga. kadib wuxuu igu imaaday guriga, waa uu i kaxeeyey ilaa isbitaalka. markaan isbitaalka tagnay ayaan wacay habyar si ay igu sheegto qolka ay ku jirta gacalisadeyda. waxay igu tidhi, habyar waxay ku jirtaa saaxiibta qolka VIP 17. waxaan u soo carray dhanka qolka. dadkoo dhammina aniga bay la yaabanaayeen oo ay soo eegayeen. markii aan qolka galay aan albaabka furay ayaan arkay dad fara badan oo gabadha la jooga, weliba dul taagan. waxa ay aqoonsatay habyar oo igu tiri waa Cabdiraxmaan. soo dhow habyar Cabdiraxmaan. dhammaan dadkii oo dhan ayaa iswada fiiriyey. waxay la yaabayeen wiilkan cusub ee meesha soo galay. markaa kadib ayaana waxaan isku dayey inaan aniga laabto, balse habyar ayaa mar kale igu wacday, Cabdiraxmaan soo dhowow, ha bixin waatanaa. markaas kadib ayay dhammaantood albaabka ka soo wada baxeen. markii laga reebo habyar, waxaa noqonay aniga, habyar iyo weliba gacalisadeyda oo aad u xanuunsanaysay markaasi. markii aragtay ayaana ilin ka soo daadatay, weliba ilin aad u xanuun badan. waxaan dareemay murugo saa'ida, waayo gacalisadeyda ilinteeda ayaan aad u xamili waayey. markaan arkay ilinteeda iyo xaaladda ay ku jirta saaxiibtay ayaa ilin aad iga soo daadatay. haddana waxaan iska qariyey inaan dareensiiyey gacalisadeyda inaan ka ilimeenayo xaaladda ay ku jirto. kadib ayaan dul istaagay gacalisadeyda, waxaana ku yidhi, xabiibteydii, waan ogahay wax walba oo ku gaaray. waan la socdaa, waana kula dareemayaa. laakiin waxaan hubaa wax walba inay hagaagayaan, ayna sidoodii ku laabanayaan. adiga walwal hasgelin, isku day inaad farxad muujisid. waad caafimaadaysaa, dhammaanteenna garabkaaga ayaan nahay. allahna wuu kugu caafin doonaa ducadiinna macaantood. markii aan intaas yidhi ayay indhaha isku qabsatay, ayadoo weliba aad u ilimeynaysaa. markaas ayay igu tiri, Cabdiraxmaan, waad og tahay xaaladda aan ku jiro. weliba dhakhaatiirta qaar waxay leeyihiin waa goosmo lugtaada, oo waxaan rajaynayaa inaan noqdo naafo. aniga kuma siin karo farxaddii hore aan ku siin jiray, kuma siin karo noloshii macaanida aan ku siin jiray, waayo maba awoodaba aniga. hadda waxaa noqonayaa qof naafo ah. man rabo inaan kugu ciqaabo noloshayda. waxaan rabaa inaad adigana farxad heshid. sidaas darteed ayaan kuu soo wici waayey, kuuguna sheegi waayey. laakiin habyar ayaa sikadiisa kuu soo wacday adiga. markii intaas igu tiri ayaa indhahayga ilin soo dhaaftay. waana xakameyn waayey ilinteeda, waayo kama aanan filayn inay aaminsan tahay inaan kaga dheeraan karo xaalad ku dhacda ayada. haddana waxaan aaminay inay tahay qof dhib soo gaaray, weliba qofkaasina wax walba ay maskaxdiisa ku soo dhici karaan. waxaan ku celceliyey dhowr jeer, xabiibtii isdeji, waxaan ahay garabkaaga.
mana ihi ruux kaa dheeraanaya adiga laakiin dhammaan ma aysan ka dhaadhacsaneen waxyaabaha aan anigu sheegayo mar qura ayay haddana igu soo jeesatay oo igu tiri waxaan kugu xiiseeyaa caqiidada islaamkiyo qaybta xigta la soco habeen dambe hadduu alla idmo fadlan like saar aragtidaada hoos inoogu reeb si aan u ogaano habka ay kuu soo gaartay sheekadan mahadsanidin